السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال أبديت أيام دي وضع برنامج دقيقة هذا الصباحي. سيدان هراي مقالدي أهري عن أوصاها الله دبا سؤال إيجويدي أو كسبسان أرنت العقد بحنتا دولة العقد بحنيسو سيدا درادي waxaan go'aansanay inaan mar kale muuqaal aan soo sameeyno si aan dadka uga kaafino su'aasha dadka ay wada qabeen ayna weydiinayeen maalmahan oo dhan oo ayna soo weydiiyeen inaan bayaanino waxay ahayd lacagta $1,400 ee la bixinayo caruurta ma ku jiraan mise dadka waaweyn householdiga ayaa la siinaya su'aashaasi jawaabteed iyo waliba lacagaha sida loo kala qaadan doono dad baa ilaa iyo 2,800 heli doona sidoo kalena dad baa waliba heli doona $5,600 heli doona ilaa dad baa ka badan heli doona yeeyihiin marka dadkaasi oo dhan muuqaalkan ayaan ku sharaxaynaa aan ku fahmaynaa isla markaana haddaad su'aal qabtid qaybta commentiga ayaad igu soo qori kartaa insha Allah sida dadkii horeyba ay su'aalo igu soo weydiiyeen insha Allah intaan barnaamijka aan gudagelin waxaan ka codsanayaa Allah subhanahu wa ta'ala kaaga baryayaa in Allah subhanahu wa ta'ala jannadiisa firdawsa kugu waraabiyo adii ehelkaagi qalbigaaga waxa jeceshahay Allah ku siiyo hadii muuqaalkan uu soo gaaray si share garay asxaabtaada la wadaag sidoo kalena hadii aadan subscribe saar follow de asxaabtaada la wadaag ajri xasanaad Allah ka siiyo insha Allah aamin dhaha idinkana muuqaalka ayaan gudagalaynaa hadaba sida loo qorsheeyay waxay tahay 1.9 billion dollar ayaa madaxweynaha codsaday si dadka loogu kaalmeeyo qayb kala duwan ayaa loogu talagalay dadka muuqaalkeygii hore waxaan sheegay in $75,000 sanadkii qofka sameeya in la siinayo $1,400 stimulationka hadda soo socda ee dawladda ugu talagashay marka dad baa su'aal ka soo weydiiyay oo ah haddii aan $75,000 sanadkii ka yar aan sameeyay ma la isiin doonaa mise lacag ka yar ayaa la isiin doonaa ayaa dad soo weydiiyeen okay marka su'aashaasi marka hore ayaan ka jawaabayaa haddii aad sameysay $75,000 in ka yar sanadkii la soo dhaafay sanad kastaba waxaan leedahay $1,400 صح وإفهم سماها وحدي على سميسي إن كير وحكير $75,000 سنتي وحلاد هاي $1,400 أي علاد هاي وهذا سينجل تهاي أو قف كليات هاي أوكي معناها أساس وده هاي وحيت هاي دتبا هري يويدي وحي ويرهدين إن شاعية مقالك واندا وني لكن ما أذن شرحين حديث $75,000 aan sameeyay sanadkii ka yar in lacagta la isiinayo iyo in lacag yar la isiinayo ma aadan sheegin yiraahdeen waxaan rabaa inaan cadeeyo oo aan wax bayaan aan ka dhigo $75,000 ka yar hadaad sameeysid waa leedahay $1,400 waa hadaad single tahay taas way cadahay waana cadeeyay in wixii su'aalana qaybta hoos ee commentiga ayaad iga soo weydiin doontiin waana ku maasan tahay commentiga aad soo qori doontiin okay waxaan u gudbaynaa dhanka kale dad ba ayagana waxay soo weydiiyeen shaaciyow hadii caruurta ma la igu siin doonaa lacagta mise householdiga like abi hooy besa lacagta loo soo diri doonaa okay hadii family aad tahay oo caruurna ay ku joogaan caruurtaadii way leeyihiin oo waa lagu siinayaa lacagta $1,400 cunug kasta ayuu qaadanaya tusaale ahaan markaan u soo qaadano hadii hooyo iyo aabe wiil iyo gabar ama laba ilmood ama laba cunug qofba sida uu yaqaano aad tihiin hooyo iyo aabo iyo laba qofood ayaga ay dhaleen ama laba ilmood ayaga ay dhaleen ama laba caruur ayaga ay dhaleen hadba sidaad u taqaanid haddaad tihiin waxaa qaadan doontiin $5,600 ayaa qaadan doontiin insha Allah taas ayaa hadda la qiyaasaya wax kastana way isbedeli doonaan kuna xisaabtan inay kor u kici karto inay hoos u dhici karto insha Allah aniga lacag oo rasmi ah oo kama dambaysa wili ma soo bixin laakiin qoondada iyo sida loogu talagalay ayaa saas ah insha Allah okay
okay aan ku celiyo marka meeshaasi si dadka hadhow aysan shaki u gelin haddii family aad tahay tusaale waxaan u soo qaadanay dad baa yiraahday haddaan maaragtay family ahay oo 2 caruur ay joogto xaaskaygana ay joogto caruurta lacag ma la igu siinayaa xaaskaygana lacag ma la siinayaa marka jawaabtu waxay tahay yes caruurtaadii waxay leeyihiin 1400 cunug kasta oo guriga ku jooga tusaale marka waxaan u soo qaadanay haddii hooyo iyo aabe 2 ilmood ay dhaleen ay guriga joogaan meeqa ruux waay 4 ruux waay afartiina ruux waxa qaadan doontiin 5600 oo dollar شن كن يو لح بقول أو دولار أي قاعدين دونتين وهدي أتسنة سميسين إن كير تضواتا إن شن كن أو دولار إن كير حدات سميسين وي مركا تا وإسلافة هنام فيليا إن أدبان أشرحي سماعا سؤال كلا أيا جرتو أو أيادنا هدي المهيجي أي كولج ديجانيان أو أرضي أيين مكجران أو لعقت مالسينايا إن هدان ديب النقطة لبدي لعق قدام بيسي حد لساقط دونالد ترامب وبحناي أرضي دا إسكولات كديجتا جامعة هديتا كوميجرين لكن هدا يس ويكجران إن وانا لسينايا أوكي هدي مركا إن كبدن 75,000 oo dollar sanadkii aad sameynaysid imisaal lagu siina lamaanaha ama labada qof ay isqabta waxay ay leeyihiin 2800 oo dollar ayaa la siin doonaa laakiin caruurtoodii 1400 ayaa cunug walba lagu siinaya clear Soomahan taas waa taas dhanka kalena وافهمني دانك كلنا أو إهاد إن أرضيدا أو جامعة ديجاتون العقل وسين دونا مركي هراء العقل ما سينجين لكن حدا برنامج كان بايدن أو وضع وحلا أقولنا يا أرضيدا إن العقل وسيو ما دام أي أرضيين أو أي معرض خوش ودي أي سي وطن إن هل مر أيام كعلنا يا سان أفهمنا إن شاء الله هدات سينجل تهي إن أو أتسميسو سنة كي تضواتا إيشانكون يو وحكير waxaan qaadan doontaa 1400 oo dollar hadii ilmo ay ku joogaan cunug kasta oo gurigaaga uu jooga wuxuu qaadan doonaa 1400 oo dollar ayuu qaadan doonaa tusaale ahaan 2 cunug ayaa ku joogto labadaada cunug waxa lagu siin doonaa 2800 oo dollar ayaa lagu siin doonaa hadii lacag ka badan intaasi aad samaysid 75,000 iyo ka badan hadaa samaysid waxa qaadan doontaa adiga xaaskaagi lamaana markaa tihiin waxa qaadan doontiin 2800 oo dollar ayaad qaadan doontiin sidoo kalena caruurtana waxa la siin doonaa 1400 oo dollar cunug kasta ayaa lagu siin doonaa waxaan tusaale u soo qaadanay ayadana 2 waalid oo hooyo aabba ah iyo 2 ilmood isku jirkoodii waxay qaadan doonaan 5600 oo dollar ayay qaadan doonaan su'aashi kale ay ahayd hadii cunugaygu uu jaamacad dhiganayo lacag ma qaadan doona yes waa qaadan doontaa uu qaadan doonaa cunugaagi waana loo ogol yahay sida hadda loogu wado hadhow wax kasta isbedeli doono haddaba marka ogow xaqiiqda oo ah in wax kasta ay isbedeli karaan waa bill waa proposal waa qorshahana wuu isbedeli karaa marna kor ayuu u kici karaa marna hoos ayuu u kici karaa marka hadhihin hadhow shaaciyo been ayuu noo sheegay ku xisaabtan waa proposal kana wuu kici karaa wuuna hooseyn karaa marka saa ula socda insha Allah wixii isbedelana halkan ayaan idinkala soo socodsiin doonaa idinkana haddii su'aal ay qabtaan qaybta commentiga ayaad igu soo qori doontiin iyo waxyaabaha aad rabtiin in halka aan kaga faaloodo insha Allah magacaygu waa Shaaciye welcome ayaan ku leeyahay hadda ka hor aadan subscribe ku ahayn الله سبحانه وتعالى درتي سبسكرايب وصار سي مقالة بدن يكون سو غاران الله رميغا فرو اصحاب تانا لا شير غري ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته